السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ummadda muslimiinta ah ugu hambalyeeynaya meel kaste ee ay joogaan ciida weyn ee Ciidul Adha al-Mubaarak. waa maalin weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ku weyn. maalinka tobnaad waxaa soo xirmay tobankii maalin ee ugu fadliga badnaa maalmaha sanadka. maalinka u dambeeyana waa afdalul ayaami cinda Allah, waa yawmun nahr. sidaas darteed acmaasha ugu fadliga badan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waxaa kow ka ah gowraca, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wax loo gowraco. waana noolayntii sunnadii nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wassalaam, markii uu ku riyooday asagoo gowracayo wiilkiisa. waatii Ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamay, falamaa balaga macahu الsacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min الصaabiriin. falamaa aslama watallahu liljabiin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. waxay aayadahaas tilmaamayaan maalmahan ciidda ahmiyadda weyn ee ay leeyihiin iyo inay muhiim tahay in la nooleeyo sunnadii abina Ibraahim calayhi الsalaam. maalmaha ciidda saddexda maalin ee maalinka ciidda ka dambayso waa ayaamu tashriiq, oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay maalmo cunid iyo cabid iyo xus alle ku astaysan. sidaas darteed muslimiintu meel kastay joogaan waa inay ku dadaalaan xuska alle subxaanahu wa tacaala. dikriga waa in la badiyo, salliga nebiga waa in la badiyo, waa inay dadku isku naxariistaan, waa in masaakiinta si laftirkoodu ay farxadda qayb ooga noqdaan loo naxariisto, oo wixii sadaqa ah oo la gaarsiin karo la gaarsiiyo. ciiddeeda waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu khayr iyo barwaaqo iyo baraaro nagu gaarsiiyo, dalkeennana uu ka dhigo mid xasiloon oo nabad ah oo horumar u jihaystay. ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed qalbigoodana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha mideeyo. taqabbal allahu mina wa minkum saalixa alacmaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo acmaasha wanaagsan. farxadda ciidda ayaan idinla wadaagayaa mar kale. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.